tenniskani tobnaad waxaa la yidhahdaa future continuous tennis. waa goor socota oo imaan doonta waa goor socota oo imaanaysa. The future continuous tenniska goorta socota imaanaysa is used for waxaa loo adeegsadaa an action fal which kaasoo will be continuing oo sii socon doona in the future asoo ah fal imaan doona. Formation qaabka loo sameeyo ama qaacidada waa subject sameeye plus oo lagu daray ama loo geeyay shall will plus lagu daray be plus verbka falka plus lagu daray ing plus object markaas waxaa noo soo baxaa future continuous tense ka aragno. Example statement tusaale aan qaadan asoo ah statement waa jumla caadi ah. I shall be reading wuxuu yidhi ardaygan waxaan si akhrisan doonaa I shall be reading waxaan si akhrisan doonaa my lesson casharadeyda. He will be teaching us wuxuuna bari doonaa ama wuxuuna dhigi doonaa isaga Englishka tomorrow bir ay wuxuuna bari doonaa Englishiga. Form qaabka su'aasha shall I be reading ma si akhrisan doonaa my lesson casharadeyda. Will he be teaching us asaga mana bari doonaa English tomorrow bir Englishka mana bari doonaa. Form qaabka diidmada ah I shall not be reading wuxuu yidhi ardaygani I shall not be reading ma si akhrisan doona aniga my lesson casharadeyda. He will not be teaching us asaga mana sii bari doono Englishiga tomorrow bir Englishiga mana sii bari doono. Question with negative form waa qaabka oo diidmo su'aaleed ah waa diidmo su'aaleed. Shall not I be reading miyaanan sii akhrisan doonin my lesson casharadeyda miyaanan sii akhrisan doonin. Won't he be teaching us miyuusan na bari doonin Englishiga tomorrow biri miyuusan Englishkana bari doonin.